بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن إدل كيمبا داوديال ملكستو عندنا قدا ونيسان halkani waa telefishinka caalamiga ee Universal Studios ku yaala magaalada London oo aan idinkaga soo gudbinayno barnaamijkan gaarka ah ee ku wajahan ama ku abaaran ama ku saabsan sida qof walba uu u garan karayo doorashadii maantay ka dhacaysay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya taasi oo ahayd doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Soomaaliya iyo waliba ku xigeenka koobaad iyo ku xigeenka labaad doorashooyinkoodii saakay markii cadceedu ay ka soo baxday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waa bulshada inteeda badan ay ahayd mid niyada ku haysa ama qalbiga dugsiga sare ee booliiska ee General Kahiye ku yaala magaalada Muqdisho taasoo ahayd madasha ama xarunta ama rugta ay markaasi doorashada gudoomiyaha baarlamaanku ay ka dhacaysay iyo ku xigeenadiisu waxa halkaasi tagay xubnihii baarlamaanka oo markaasi horkacay ama uu ahaa kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka intaan gudoomiyaha la dooranin General Muuse Xasan Cabdulle iyo xubnihii kale ee baarlamaanka u diyaar ahaa inay codkooda dhiibtaan iyadoo ay tartanka maanta ka qayb galayeen 5 musharax oo ahaa 5 musharax ee hore uga dhawaajiyay inay iyagu doonayaan inay noqdaan gudoomiyaha baarlamaanka haddii markaasi la doorto markii hore tiradoodu 6 bay ahayd laakiin 2 maalmood ka hor ayaa Dr. Cabdirasaaq Joorile oo isagu ka tanaasulay inuu tartanka ka qayb galo waxa madasha yimid 5 musharax ee doonaysay inay kursiga gudoomiyaha baarlamaanka ay ku fadhiistaan waxay kala ahaayeen Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo Dr. Cali Khaliif Galayr iyo Xasan Abshir Faarax iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Cabdirashiid Maxamed Xidig doorashadaasi iyada ay markii ay bilaabatay ee wareegii koobaad la tiriyay ayaa waxa codadkii ugu badnaa helay markiiba Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyadoo codadka xigay xagga badnaashahana uu helay Dr. Cali Khaliif Galayr taasi waxay noqotay wareegii labaad oo jira in ugu dambeystii ay halkaasi guushu ay ku raacdo iyadoo isu tanaasulaad xoog leh ay muujiyeen musharaxiintii kala duwan ee ka qayb galayay guushana uu halkaasi ku helay codadka la siiyana ay badnaayeen gudoomiyaha iminka oo ah gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya shakhsiga loo doortay oo ah Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxa iminka socda sida aad la socon kartaan intiina badan oo dacalada adduunka ka dheehanaya barnaamijkan waa kaalinta labaad iyo kaalinta koobaad oo ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka iyo gudoomiye ku xigeenka labaad oo ayagana musharaxiintoodii la kala saarayo laguna kala saarayo codadka xildhibaanada baarlamaanku ay markaasi siiyaan gudoomiyaha baarlamaanka guusha uu ku gaaray Professor amaba Dr. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxay ahayd mid uu filan karay maxaa yeelay qof kasta markii uu hadlayay intii aan la bilaabin doorashada yaani waxa ay muujinayeen inay diyaar u yihiin oo ay jecel yihiin inay guuleystaan haddii laga guuleystana ay diyaar u yihiin ayagoo aaminsana in gari aanay laba nin ka wada qoslinin gudoomiyahan iminka la doortay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxa uu ku dhashay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose sanadkii 1945 iyadoo waxbarashadiisii hoose iyo dhexe tii saraba ilaa iyo heer jaamacadeedna oo waliba ka gaaray aqoontiisa isagoo dugsiyada uu dhigtay oo kamid ahaa dugsigii la oran jiray Magistrale oo ku yeelay magaalada Muqdisho jaamacadda qaanuunka ayuu shahaadada qaanuunka ka qaatay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari aqoontiisii markii uu dhameystay kadib waxa uu noqday inuu ka mid noqdo mas'uuliyiintii dalka Soomaaliya xilligii kacaanka oo ahaa xilligii uu dalka hogaaminayay Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre waxa uu noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka waxa kale oo uu noqday agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha kadibna waxa uu noqday wasiir ku xigeen oo ah isla xilalkaas wasaaradda gaadiidka kadibna waxa uu noqday wasiir wasaaradda gaadiidka iyo waliba wasaaradda shaqada intii iminka la diyaarinayay dastuurkan Soomaaliyeed iminka dalka Soomaaliya loo meel mariyay waxa uu gudoomiyaha guddiga khubarada ee dastuurka qoraysay oo diyaarinaysay kadibna waxa uu ka dhawaajiyay markii magaalada Muqdisho lagu soo ururay waqtigii doorashadu uu bilowday inuu diyaar u yahay isagoo Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari inuu u tartamo jagada gudoomiyaha baarlamaanka mar la wareystay oo la weydiiyay intii aan baarlamaanka la isugu iman maanta iyo doorashada maalmihii la soo dhaafay oo warfadiyeenku ay wareysteen Dr. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wax su'aalaha la weydiiyay waxa kamid ahaa waxa la isla dhexmaraya in dadka doonaya inay gudoomiyaha baarlamaanka noqdaan ay doonayaan inay bixiyaan xoogaa mushaqaayada oo ay dadka siiyaan si loo doorto arintaas ka waran adigu xaalkaas waa sidee Dr. ama Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxa uu uga jawaabay anigu lacag ma haysto mana dhiibayo
aqoontayda ayaan doonayaa inaan ku tartamo oo aan haddii aan ku guulaysto aan noqdo mid ku hogaamiya dalkiisa iyo dadkiisa. taasi waxay noqotay inuu guushii ku helay maalinkii maanta ahaa dugsiga sare ee General Kahiye ee booliiska markii doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka lagu qabtay. barnaamijkan haddaba waxaan uga gol leenahay inaynu daawadayaal bal aan ku eegno markii ugu horeysay ayaa magaalada Muqdisho muddo 20 sano iyo ka badana ay dadku si xorriyada ugu doorteen gudoomiye baarlamaan inta xubnihii baarlamaanka oo la soo xulay ay isu yimaadeen, taasoo ay dadku intooda badan u arkayaan iyadidiilo wacan inay tahay. mar haddii gudoomiyihii lagu doortay si wanaagsan gudoomiye ku-xigeenadiina ay doorashadoodii ay socoto la soo eegayo ayaa su-aashu waxay tahay maxaa laga filan karayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo guud ahaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya maadaama ay tahay hay'adii ugu sarreysay dalka. marka waxa laga filan karo iyo waxaad u arki kartaan iyo waxaad fari lahaydeen intaba ayaynu ka wada sheekaysanaynaa saacada soo socota biidnillaahi kariim adinkoo ah bulshada Soomaaliyeed ee telefishinka Universal ka dheehanaya dacallada adduunka. markaas inta aanan u gelin teleefanadiina waxaan jeclahay bal wariyaasheena mid kamid ah Axmed Nuur Cali Maxamed oo isagu madasha ku sugnaa maanta oo dhan dugsiga sare ee booliiska ee General Kahiye kana waramaya qaabka ay doorashadu u dhacday. waa kan isagoo warbixintan inoo soo diray ee aan markaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta ku ay ku yeesheen dugsiga tababarka ciidanka booliiska General Kahiye ee magaalada Muqdisho waxay ku doorteen gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya kaasi oo loo doortay Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo ka mid ahaa musharaxiin shaqo oo isku soo taagay jagada gudoomiyaha baarlamaanka. fadhiga baarlamaanka ayaa waxaa gudoomiyey gudoomiyaha ee baarlamaanka lahaa Muuse Xasan Cabdi waxaana xildhibaanada baarlamaanku ay sameeyeen gudoomiyaha rasmiga ah oo ay yeelanayaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. kulanka xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya oo soconayay muddo saacada ayaa gabagabadiisii waxa ay suura gashay in xubnaha baarlamaanku ay doortaan gudoomiyaha rasmiga ah ee baarlamaanka hogaamin doona 4 sano ee soo socota Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari kadib tanaasul dhowr oo ay sameeyeen musharaxiintii la tartamayay gudoomiyaha maanta la doortay. xildhibaanada baarlamaanka ayaana sacab iyo soo dhaweyn ku soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka markii la shaaciyay in uu yahay gudoomiyaha rasmiga ah ee baarlamaanka Soomaaliya. musharaxiintii la tartamayay Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari waxa ay sheegeen inay ka tanaasulaan jagadaasi isagana gudoomiyaha rasmiga ah oo noqday Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari sida uu ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha ku-meelgaarka Muuse Xasan Cabdi. aad وما تنيا كلامه بيعه قاضي أنا جاوبه هو شرطي وحن هالمرة نحتاج هذا كلامي هذا لو نقوله ما حد يبغى ما غيرنا صاحبنا وحكوا حقليا الديوان بدون عصر محمد شيخ عثمان جواد doorashada xildhibaanada baarlamaanka cusub ayaa ku koobneen gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada soo keliya waxaana la filayaa maalmo kooban kadib in xildhibaanada وهاجاك داوديال مر هدي أي نداوني وريني أو كسر ورمي مدرسة شركة دكتور سريع بوليسكا عن ورنا إذن كسر جنين قدومي برلمانكا بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري قدومي كحجينا دينا لكلا ساريو أو كيكو بعد وريجيديو دي أي سعدان مشرحين تينا الكا لغوتر تنسينيو عد في عن نظيف أو عن بوق يو اسكدبوري لهينا هالكا لجدي منيو يعني وحي أمو قطع طلابة هذا وناكسن وآه إن مركي يقول رئيسي دتك الصوماليات وإف muddo ka maqnaa ayagoo muddo mugdi ku jiray. marka su'aashu waxay tahay adinkoo fikirkiina ka dhiibanaya sida wanaagsan maanta wuxuu dhacaan xagga baarlamaanka doorashadiisa iyo filashada aad filan kartaan in baarlamaankan uu noqdo mid dalka iyo dadkaba ku soo hogaamiya waxa aad u qiimo badan maxaa yeelay dalka Soomaaliya aqoon-yahano ayuu leeyahay oo kamid yahay gudoomiyaha maanta la doortay Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari. marka waxaan filayaa iyadoo aqoonta laga faa'iideysanayo in arrinkaas si talaabo ah loo qaado. waagaag waxaan jeclaan lahaa laynka telefoonada inaan ku bilaabo marka hore kadibna aanu
marba in idin saarno si aad u aragtaan mar walba isbedelada dhacaya waxaan jeclaa lahaa inaan marka hore laynka telefoonka aan ku bilaabo iyadoo mar dhow aan jeclahay kaalinta gudoomiye ku-xigeenka koobaad inaan idiin soo gudbin doono biidnillahi kariim qaabka iyo sida ay musharaxiintii ku tartamaysay ay ugu kala guulaysteen laakiin marka hore laynka telefoonka ugu horeeya ayaan gelayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هبين وناسن عكس حاجي مقعي ومحمد وحن كسواد ليا برمنغهام يوكي aad ما شاء الله كسو دو برنامجك ما انت maxaa ku muuqda adoo jooga magaalada madaxda labaad ee wadankan هي ما انت نيو فرحت وين باي موقتو الحمد لله وحن دريميا ان يعني دل ان لياhay maadaama muddo fara badan qaxootinimo iyo rajabeel fara badan maanta markaan TV-da ka daawado ummadii Soomaaliyeed oo shisheeye uu ku dhex jirin oo si xaq ah codkoodii u dhiibanayaan oo lagu dhawaaqayo oo live ay tahay oo yani sharafta meesha ka socota iyo saameyn aan la soo koobi karin baynihi ugu yeelata maanta rajadeeduna aad iyo aad bay u weyn tahay niyo aad iyo aad marka maxaad baarlamaanka gudoomiyaha cusub gudoomiye ku-xigeenada la dooran doono iyo xubnaha baarlamaanka maxaad u soo jeedin lahayd عكس حاجني وما تنتهي فرصة وفرصة قالية هني هو ومدى الصومالية مدفرة بدن أي دباتة كتشتي أنا أقول سيدا نعبا وحنا هاي ندور قحوتيو ربجوك هذا قرن كودي ويو وحن بنا هاي قوستي يعني لباسن سنة أيام قوس تاجنين عرورتني أيام قحوتية أنا جيبا قحوتية هن كوي دلان أيام قحوتية في نقطان لقى عد قضاء هدي برلمان كان مانت الصومالية يعني كبح الأمور أساساً تصير موقتة هذا التلاقي كقوات آد بوناكسيهين رجلنا ويفي عنها إلهي وحن كرجليا إن النقدان كوا وضن كأوهر سودا يعني تاريخ يتالين كودنا لقد يشدون ماشى مانت الشركة اللي هو قصي وضيه دون ضدك وضدك صوماليا دباتة كساري أنهر سودا وضد النبضة عرورتين دلنا أول شيء كين دون بارلمان كي Soomaaliya dhibka ka saaray inaan niraahno aad iyo aad baad u mahadsantahay adigoo jooga magaalada Birmingham waan kaaga mahad celinayaa laynka kale ayaan u gudbayaa telefoonka daawadayaal salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu cagta xaaji waxaa kula hadlaaya Sideesh Cadaawe Cabdi oo ka soo wacay wadanka Sweden ma sha Allah ku soo dhawow barnaamijka sidee kuugu muuqataa maanta doorashada ka dhacaysay dugsiga sare ee booliiska ee General Kahiye ee magaalada Muqdisho wallahi niyo waxa way maanta farxad aad iyo aad aan faraxsanahay waxaad moodaa wallahi billahi inay wadankii dawlad ee ka dhalatay horta ma sha Allah doctorka macnaha professorka Maxamed Usmaan Jawaari waxa horta si fiican u hadlay markuu yiri aniga wax lacag ma haysto hadii la doorna hal door horta taas waa ku taageersan waa nin aqoonyahan waxa way maanta nin wadanka wax ka qaban karan waana ninkaas oo kala loo baahan yahay labada nin oo kala gudoomiye kan labaad ku xigeenkii iyo kan saddexaad waxaan rajaynayaa rag oo asaga camal inay ka soo baxaan ma garatay santahay adigoo Sweden jooga farxadaada ka muuqato waan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeedna ay sidaas oo kale ay qabaan reer Swedenna waan filayaa laynka telefoonka inay soo gali doonaan sidoo kale laynka kale ee telefoonka ayaan u gudbayaa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan habeen wanaagsan cagmadiga waa ku salaamay walaal ku soo dhawow barnaamijkan gaarka ah maxaa ku muuqanaya baarlamaankii Soomaaliya oo doortay gudoomiye ku-xigeenadiina iminka la dooranayo markii ugu horeysay Muqdisho lagu kulmayo arinta ka waran والله وواحد لو فرحوان وواحد وناكسن أمة الصوماليات لما أنت تسوينا يقول أنا وقت سنة وطن كين جدي يصدر الشهر أو تقدر تقولي ودعري يعني واحد وين وما أنت لو لحقت فرحو aad iyo aad marka adigu waxaad tahay qof Soomaaliyeed oo aad u jecel in wax hagaagaan sida codkaaga ka muuqda farxad baad muujinaysaa marka xubnaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenada la dooranayo xubnaha baarlamaanka maxaad u soo jeedinaysaa xubnaha baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa in ay maxay ahayd sheeg si wanaagsan ay hawsha ay maxay ahayd u kala sameeyeen in hawsha ugu sii socoto oo maxay ahayd sheeg ay ku dhamaato gool iyo nabad waxaan u hambaleynayaa gudoomiyaha baarlamaanka cusub Jawaari ayaan maxay hambaliyalkan ugu dirayaa waxaan leeyahay mafruuq inta dhimana ilaahay noo dhameystiro aad iyo aad baad u mahadsantahay waa kaaga mahad celinayaa fikirka wanaagsan iyo sida aad maaragtay didila wacan aad u muujinaysid adigoo ah gabar Soomaaliyeed laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum calaykum asalaam ku soo dhawow barnaamijkan gaarka walaal magacaygu waa Furtuun Xayle haye waxaan aad ugu faraxsanahay in Soomaaliya taas oo kale ka dhacdo wax wanaagsan wax weyn waay oo lagu farxo wax wanaagsan
waxaan jeclaan lahaa ilaahay inta dhiman inuu noo dhammaystiro. hello nin maqashaa walaal? waan ku maqlaa waxaan jeclaan lahaa ilaahay inta dhiman inuu noo dhammaystiro. biidnillaahi kariim nin kastoo cilmi leh iyo nin kastoo Soomaali wuxuu tiraahdaa in la taageero. aad iyo aad baad u mahadsantahay. waa agaag daawadayaal waxaan ka codsan doonaa farsamayaqaankeena barnaamijka mar hore oo aan fogeyn oo uu halo salaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر دو ولا البرنامج كمجا مجا وحسين. حسين محا كو موقنا يا مانتا. والله ما أنت وحا موقنا يا أرن وفي عن أو فرحات ونكسن يوم الصوماليات أو كل وين وصوه ما أنت ما دام ومجالات مقدشو. aad وما أنت ما دام مقالة مقدشة لو خطي ورشدي برلمانك وأنا كان حتى داونا سوى نفسنا أيان أول الصعداء ما إلا حتى هو الشيء أيان أبل إن في رصده ما شاء الله حتى إن الله خير صده ومد الصوماليات مال والبهيج وقت aad baad u mahadsantahay daawadayaal weli telefishinka Universal Studio London ayaad nagala socotaan barnaamijka gaarka ah oo ku saabsan doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waxaan jeclahay markan inaan idinku soo dhaweeyo wariyahana Axmed Nuur Cali Maxamed oo war nooga soo diray ku saabsan doorashada gudoomiyaha Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo dugsiga sare ee booliiska generaalka ee magaalada Muqdisho daawasho wacan xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen dugsiga tababarka ciidanka booliiska generaalka ee magaalada Muqdisho waxay ku doorteen gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya kaasi oo loo doortay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka mid ahaa musharaxiin shaqo oo isku soo taagay jagada gudoomiyaha baarlamaanka. Fadhiga baarlamaanka ayaa waxaa gudoominayay gudoomiyihii ku-xigeenka ee baarlamaanka oo lahaa Muuse Xasan Cabdi waxaana xildhibaanada baarlamaanku ay sanadkan ku doorteen gudoomiyaha kulanka xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya oo soconayay muddo saacada ayaa gabagabadiisii waxa ay suura gashay in xubnaha baarlamaanku ay doortaan gudoomiyaha rasmiga ah ee baarlamaanka hogaamin doona 4 sano ee soo socota Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari kadib tanaasul dhowr oo ay sameeyeen musharaxiintii la tartamayay gudoomiyaha maanta la doortay. xildhibaanada baarlamaanka ayaana sacab iyo soo dhaweyn ku soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka markii la shaaciyay in uu yahay gudoomiyaha rasmiga ah ee baarlamaanka Soomaaliya. musharaxiintii la tartamayay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxa ay sheegeen inay ka tanaazulaan jagadaasi isagoo gudoomiyaha rasmiga ah oo noqday Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari sida uu ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha ku-xigeenka Muuse Xasan Cabdi. aad وما تنيا كلامه بيعه قاضي أنا قاعد نقول له هو شرطي وحنا هنمروا نحن يعني كده مية حتى لو نقول له ما حد يبغى ما تقولنا صاحب كنا وحكوا حقليه الديوان بدون عصر محمد شيخ عثمان جواد وهاجاك داود يلا مر هدي قدوميه برلمانكا يا دلك الصومالية أو برلمان عن كميل جاره هنا جوكتا أي صومالية يلا تيمانتو أي تايسديد يلا باتنكا ديسمبر لبده كون يلا بيه طبنكا ودكسي السرية بوليس كجنرال كاية مقالة مقدشة لو دورتي بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري أي أنتي برنامج كبيري سوران كجرني وحا لسوق بجميعي وريجا وجودن بيجي يعدي كسر بحذي قدومي كحجين ككوباد برلمانكا دلك الصومالي ويانا يو waxaa lagu magacaabaa Jailani Nuur Iker oo isagoo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed waxbarashadiisuna ay sareyso kana tirsanaa dawladii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee ugu dambeysay waliba uu ka ahaa wasiirka howlaha guud walibana uu kamid ahaa wafdigii yimid magaalada tan London 23 February sanadka 2012 ee ka qayb galay shirkii Soomaaliya loo qabtay marka wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ayuu ahaa Jailani Nuur Iker iyadoo waliba gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee Jailani Nuur Iker iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee soo bixi doona intaba biidnillaahi kariim aynu taariikhdooda iyo barnaamijyadooda aan waqtiyada soo socda idin soo gudbin doono haddii abaydmo gudoomiyihii baarlamaanka ee maanta la doortay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanayo Jailani Nuur Iker
iyadoo gudoomiye ku-xigeenka labaadna doorashadiisii ay socoto oo marka la soo gabagabeeyo biidnillaahi kariim aad telefishinka caalamiga universal aad ka dheehan doontaan natiijadii oo buuxda oo ah baarlamaanka soomaaliya oo haysta gudoomiyihii la doortay gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku-xigeenkii labaad kadibna loo gudbi doono waad garan kartaane doorashadii madaxweynaha ciddii noqon lahayd oo xubnahan iminka doortay ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada looga fadhiyo in ayaga laftoodu ay haddana doortaan madaxweynihii dalka hogaamin lahaa ee la doonayo bashbash iyo baraare iyo barwaaqo inuu dejiyo biidnillaahi kariim laynka telefoonkan u gudbiyaa markan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ha ku soo dhawow barnaamijkan gaarka magacaaga walaal والله ياسين قال لي yaasiin maanta iyo dadiilada kuu muuqan karaysa adigoo yaasiina oo adduunyada meel ka mida igala soo hadlaya waad sheegi doontaa kolley tabalka aad joogtid maxaa maanta kuu muuqday والله آدي أيام فرحتنا هاي دولة نوقف هذا البرلمان أسبوع اسمه waa gartay haye دورة كده هذا المقدس كده أوكي بروح آد جماعة كده سنك aad iyo aad aad iyo aad intaa maxaad raacin lahayd yaasiin والله صاحبك يوصل هنا ya برلمان أسبوع جواري إنه بقول aad iyo aad aad iyo aad yaasiin iyadoo telefoonkaagu iga gogo-ayo haddana waan dareemayaa inaad muujinaysa dilo wacan oo la xiriira qaabka iyo siday wax u dhaceen iyo doorashada iyo soo dhoweynta aad soo dhoweynaysay gudoomiyaha baarlamanka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamanka jaylani nuur ikar gudoomiye ku-xigeenkii labaad ayaa doorashadiisii ay socotaa iyadana marka lasoo dhammaystiro waanu idiin soo gudbin doonaa biidnillahi kariim laynka kale ee telefoonka ayaanu gudbayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan عليكم السلام ha walaal ku soo dhawow barnaamijkan gaarka ee universal magacaaga أحمد وأولي سويدن haye ما شاء الله وان maanta dhandaawanayno si wanaagsan meesha macnaha wanaaga ka socon karta haye marka aadan ugu faraxsannahay waa maanta Soomaaliya aad iyo aad oo alxamdulillah markaas 20 sano u dambeeyay intaasoo shir oo ummadda Soomaaliyeed loo soo qabtay shirar dalalka dibadda waddanka maanta inay iyagoo kooxoodii magaalada ay ku doortaan waa guul bilaabata aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka horumar wada maanta aad iyo farxan Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinayaa sida maaragtay nimanka ay macnaha u baneeyeen ay tuseen meesha dimuqraadiyadda iyo macnaha in laga cod badan yahay markeen wanaag meesha uu ku jiro sidoo kale waxaan rajaynayaa madaxweynahana intaas kale loo doorto oo nabadgelyadaas ku dhaco oo dowlad maaragtay oo waddanka wax ka bedeli kara oo dhibkan iyo rafaadkan uu soo maray wanaag uu heli kara oo meesha aan bilaabato dhismihii iyo horumarkii iyo Soomaaliya iyo wanaagii oo dhan oo halkaas ka bilowday biidnillahi kariim aad baad mahadsantahay oo waddankoodii maaragtay oo dhumay dib isugu soo celiya oo isku soo kaba oo waddankii Soomaaliya macnaha waxaan rajaynaynaa wanaag iyo dowladnimo aad iyo aad baad mahadsantahay fikirkaaga wanaagsan waan kaaga mahadcelinayaa iyo guubaabadaada iyo rajadaad fiican ee aad muujinaysid dad badan ayaana fikirkaa kula qabi karaya aad baad u mahadsantahay walaalo laynka kale ee telefoonka ayaanu gudbayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه ولا سعد مدق وكمال أسد محمد وكالها الله ودك نذرلاند aad iyo aad waan ku soo dhaweynayaa kamaal maxaad oran lahayd muuqaalka maanta iyo caawa aad u jeedid telefishinka universal adiga ka dheehanaya natiijooyinkii gudoomiyihii baarlamaanka ee la doortay gudoomiye ku-xigeenkii oo la doortay koobaad kii labaad oo iminka la dooranayo asad jawiga ee halka aad joogtid ee Holland ka waran والله بالله آدي أبا أغفر عصر مد أغفر صورت إلى وحام هذا إلهي سبحانه وتعالى ومانت إن التصي أما إنه دليل ودن كينو صومالي لغو دورتي قدومي برلمان قدومي كحيجين مدك الواحد والبوحة كسي فرح بالله وقد أنت بدن صومالي مركي واحد بارو رسالة ديجري مر جبوت لغو صوت دسي مر ميلك لغو صوت دسو مد أغفر سفرات وكوات صومالي واي وحامد نيكرا مانت قدومي لما دورنا صومالي عيد سدحات عيد سدحات واي لما عيد بارقبنا عيد سدحات بان كرا مدى كلا waxaan ku fikirayaa macnaha aan intaan aan daawanay
codadkii wax walba dadka macnaha aan wax ka qora ayaan ahay midda kale waxaan ku talinayaa ama aan macnaha ku baaqayaa madaxweynaha la soo dooran doono ama gudoomiyaha baarlamaanka hadda la doortay ama baarlamaanada dad ayaga isxukumo oo ma aragtaay iska dambeeya aan wadan kale aan ku xirnayn oo qaab siyaasada qaab wax walba ayaga waxyaaba midda kale ma aragtaa ciidamada kale iyo waxyaabaha ciidamada Soomaaliya la dhiso Soomaaliya labada wada noqoto ma aragtaa wax walba in Soomaaliya iska tusaale qaadato ana ayada wada heshiiso meel aan laga xukumin taas ma rajeynayna insha Allah maanta oo gudoomiyaha la doorto ma dhigi karna Soomaali ciid bay u taandhigi karaa Kamaal aad u maadsanta adigoo jooga wadanka Holland ma aha markii ugu horeysay barnaamijyada Universal aad ka qayb qaadatay barnaamijkan gaarka ah ee ku saabsan doorashadana si fiican baad uga qayb qaadatay si gaar ah baan ku salaamayaa daal ka dhigo laynka kale ee telefoonka ayaan u gudbayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habeen wanaagsan calaykum asalaam waraxmatullaahi agmadhige walaal ku soo dhawo barnaamijka walaal waa ku dhowahay barnaamijka aad baan caawa u xiisaynaynaa haddaanu nahay shicibka Soomaaliyeed adduunyada meelay joogaanba aad iyo aad waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa oo ugu faraxsanahay maaragtay doorashada wanaagsan ee quruxda badan ee maanta Soomaaliya Muqdisho gudaheeda ka dhacday kuwii ka horeeyay ay ka dhici jireen wadanka dibadiisa oo aan aad ugu faraxsanahay Muqdisho in nabadgelyo ka jirto in dadkii Soomaaliyeed soo dhawaaday in maaragtay xumihii iyo qabyaaladii iyo faquuqii aad moodo in dadku sidoo hore uga fiicnaaday aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa ra'iisul baarlamaanka u sheegaynaa inuu noqdo qof cadaalad ah oo Ilaahay ka baqa oo xukunkan iyo maaragtay kursigan loo lolamayo waxa ka weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala wajigiisa la tagaya wala xisaabinaya qofku haduu og yahay inuu cabsi Ilaahay ay jirto oo gadaashiisa jirto xisaabina ka dambayso wasuuliyadan waa inuu si cadaalad u gutaa wax walba maanta gacantiisa iyo gacanta Ilaahay bay ku jiraan iyo qabyaalad iyo 20 sanadeenu qabiil laba dible ugu xireen oo calankii iyo ciid iyo dhulkii u baaba'ay maanta professor Jawaari waxaan ka baryaynaa aan ugu duceeynaa qofka markuu ra'iis yahay ama meel qabto waa loo duceeyaa laguma sarakaco lama cayrsado qofkii Allah barin in la mucaaradana waa falcun tahay waxaan aad iyo aad Ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo qofkii maanta Soomaaliya raadka iyo gaajada iyo dadka aad aragtay agmadhiga lacagta u gurtideed u damqatid ee maaragtay maanta Soomaaliya qof kasto dhig la ka ooyayo dadka baarlamaanka ku loolamay iyaga mas'uulka amaama Allah maalinta qiyaamay waa inay ka soo baxaan mas'uuliyadda Ilaahay uu saaray ay magaceeda halka kitaabka gacanta u galiyeen waxaan ka baryaynaa inay dadka waraabiyaan oo gaajada ka bixiyaan oo ceelal u qodaanin oo guriyo dejiyaanin oo nooleeyaan amaama Allah baa la tagayaa kuwaasi waa kuwa xaq wadanka kule dhabta ah waa in Ilaahay laga baqo xukunkana waa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa la tagayaa intaas oo kun oo barbarisaynta ina soo martay qaar qabuuraha jira iyo qaar maaragtay si kale u jooga kulligood amaama Allah waa lagu xisaabinaya maalinta Ilaahay la hortaagaya aad baad u maadsanta walaalo sida fiican aad u goobaabineysay waadna u duceysay ducada Allah ka aqbalo waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed laftoodu adduunyada meel kasta ay ka joogaan inay dawladooda iyo baarlamaankooda ay taageeraan oo aanay naqdinin maxaa yeelay naqdisku maaragtay maaha inuu joogto noqdo waa la isnaqdin karaa oo khalad haduu jiro waxa la oran karaa waxaasi waa khalad laakiin ayadoon bal la hubsanin inaan la isnaqdin aad baad u maadsantahay marna waad duceysay Allah ka aqbalo marna waad goobaabisay marna fikirkaaga wanaagsan ayaad ka dhiibatay telefishinkeena caalamiga Universal Studios ku yaala London oo dacalada adduunka laga dheehanayo laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عقمدي walaal ku soo dhawo barnaamijkan gaarka ee doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenaysa saad wax u aragtaa maanta adigu marka horeysa magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Sheekhay Axmed Dheere awoogiisanahay ma sha Allah هذا لما يعني ما أنت آدم وفرح سنهاي ومركي هورا وفدي هذا سوا استاجي هذا واستاج محل استاجت وادي وحال استاجي فرح يعني الاستاجي أيه سانتنا واقع هذا اللق واي تاجنتها وحماهم كسعدا يعني أرنكوا علوسي هاي كلمات نمرك وحاربها إن شاء الله مركي وين هي الدولة دورتها إلى متلمات ينان خاضو ما شاء الله آديات وحي علي يعني الله رسولك كأوك وان قرا marka aadan u faraxsanahay waxaan Ilaahay ka baryaa aan karajeeha gudoomiyaha hadda la doortay gudoomiyaha koowaad Jelaani Nuurayni inay naqdan ku dalka hogaamiyay sidaacad alla ka cabsi ah
عاد أو خبيل يقرن عن لهن عاد يعني أيان إلهي كبريا آمين مركي كبعد الله دورتنا مدحوين السماء سكالة مركي إلهي وحن كبريا يعني هذا واحد وقتها مكوش هذا يعني فرح أوجس يعني هذا كيف هو يقدر مي وأوجا ووجد هالك سن كارك كريا لكن وهو فرح دونا دمانتن إلهي وحن كبريا نبض ووارتا سري هو يسكفي عن نزلت إلهي نوصل آمين آمين هذا وما تسنتاي إلهي ما رتاكو بركة أحمد بير أوجس نواي لوبي وأوجا ما اللوبي كروا صاحبك واي صاحبك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أد بعد ما تسنتاي دعاء هذا الله أقبله ما شاء الله لينك كله تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا السلام عليكم هلا ها والله التلفزيون كاغ وادير يا غابي مغعاغا أنا شريف حسن حقيت شوكتا عندي مغالبة مقدشو ما شاء الله مقدشة جوكتا ما أنت شركة إسكولا بلوزية ما تكتي مسا حافظ كلا جوكتي ما مثلا لكن هذا ونفع عني ماشي عمل أو أدمان كانوا بعضهم أو دورشة اللي كده يفيد بس أو شعبك أدمان هو قلان لكن وحاك فرح صنع التلفزيون الراوي ياشا المغالبة ودوين كده السلوسة بحي دادك دان هيكو فرح سنين دعك دعيو دكسي جمالكا هي دورشة برلمان كا وانا كفرح صنع الأمد السوماليين وحالهم بلينا لكس جوغان على شو عنا دولة عسلان الله بلد وحنا رجينا إلهي نقدر إلهي نقطة آمين دولة دي احنا نطع وضنك نقطة تي نجمع أرامتي فياشنات كي تقفي عن إلهي نقدر بإذن الله كريم أجياد إلهي وحاقدر أمد صوماليين وهم بلينا دولة العسلان نقطة دولة كافيسة دمان أمد الصوماليين قد أهل نكستوي كجوكتو أنا رجينا نبض البراقو حقنا هذه يونيفرسال يو دادياش برامج الآن أدين سلامة دنيا عصبنا وهم بلينا ما شاء الله هذا وما تسنتاي قدومية عصوبة دوان بليانيسيد بروفيسور محمد شو عثمان جواري قدومي كحيجي كوبادنا لدورتي جيلاني نور إيكر قدومي كحيجين كلا بعدنا إمينك أنت برنامج كوسو عادي سوق بجودنا عن ندي سوق بدنا هديك لو ورك يقدم دعاياتكم مغلدون تان هذا مقدسي جوجا ديات بعد ما تسنتال كان نقل سعودان ويونيفرسال ستوديو لندن 6 ساعة عكت حاجة ودي سوق بدنا برنامج جارة وكساب سندورة شذا برلمان كدلك الصومالية قدومية يلا بدأ قدومية كحيجين لينك كلا تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقب دقيقة وعليكم السلام ورحمة الله كسر دو برنامج كم عجا مقعي أحمد محمد ديرشال اللي هذا وعن كسر وعي نوروي مقالة بروفيسور كود كان دوري اللواتن كسنو ما شاء الله ما شاء الله هي مركب محاضرة له ما أنت وحنا نقول له مدة صومالية وحنا وهم بليين هي غفكي بروفيسور كي يغني غف أنا قوم بروفيسور كيلو يهين حلك كسر بحكرة عاديات waxaan ugu hambalyeeyaa nin aan markii horeba markuu tagay aan dooranay oo ku dooranay gaaraya 1200 oo qof oo muslimiin oo dhan isugu jira ma sha Allah xilkaasna markuu meesha ka tagay aan kula dardaarano oo dirnay kula dardaarmayna dhowr iyo 20 sano inuu Soomaaliya tago oo xil ka qabto oo u dadaalo aadiyad waxaan kaloo ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa يعني إيرون مساجد أفر طبقة وكدسي مقالة ندقنا أسوي كدسي قعنتي سنة كل شيء ما شاء الله وطلب أدون أكسن وحن كانوا شيء إنه الماء الصوماليات ومركود دل كانوا وأف صومال وقب الله بما أنتم كتجي وسيدي وجودي عاديات ووحون أكسن وحن كانوا شيء إنه مدة الصوماليات أنا يوهم بليا يعني بروفيسور كان يقول أماني يعني إنه ما حوها ومد الصومالي يودن ميل كستو يجوكتو ما كتمت وانا هاين بروفيسور يعني قف يعني ما انت يحل دونها يوسان هاي صونا هاي قف دقالت دونها هي عاديات وحانا الأبو همبليين يا همبليين أودر هيا كون إيا لبا بغور مسلمين انت تشوكتا يا يسو ديبت سلان تاس او همبليين يسا وحانا تورجين إناه يعني بقول كيف بقول أنك بحيل كله يبي أسوق دخل كرادين إنه كرادين يوم مدة الصوماليين وبداديو نعم إنه ما شاء تجي يوم مدة الصوماليين تاس أنا شيء يخفي عندنا جواري
aad iyo aad baad u mahadsantaha walaalo aad iyo aad baad mahadsantaha adigoo jooga Norway oo aqoonna u leh isku magaalana aad joogteen tallaabooyin wanaagsan oo qaada professorkuna halkan aad ka dhawaajisay waxyaabaha ugu wanaagsan aad tilmaantana ay kamid tahay inaad tiri masjid 4 dabaq ayuu halkan kelidii ka dhisay waa wax la sameeyo ama tallaabo qof bin aadan ay qaadato ugu wanaagsan ma sha Allah haddii dalkii hooyo ee Soomaaliya oo maanta gudoomiyaheedii baarlamaanka uu noqday waxa laga filayaa waxa weeye wax badan oo wanaagsan oo Allah awood leh uu raalli ka yahay biidnillaahi kariim laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh habeen wanaagsan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله kusoo dhawo barnaamijkan gaarka magacaaga والله علي يوسف كاري الله علي يوسف كاري xagee joogtaa لندن aan joogaa London maxaa maantay iyo caawa wararka ku soo gaaraya ee xagga Muqdisho ka waran والله aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay والله waxa Muqdisho ka socdo waxa waaye waa arin aad iyo aad u fiican waa maartay aynaad maadaama oo maartay magaaladii Muqdisho gudaheedii lagu dooranayo gudoomiyaha baarlamaanka maartay madaxdii lagu dooranayo walaal aad aan ugu faraxsanahay hadaan reer London nahay aad iyo aad marka gudoomiyaha baarlamaanka ee la doortay gudoomiye ku-xigeenka koobaad oo iminka la doortay kii labaad oo iminka doorashadiisii socoto iyo xubnaha baarlamaanka maxaad u soo jeedinaysaan maadaama aad faraxsan tihiin London aad joogtaan walaal waxaan u soo jeedi lahaa maartay dawlad maartay wanaagsan waxaan kaloo u sheegi lahaa in cadaalad wadanka oo macnaha maartay lagu dhaqo walaal waxaan kaloo dhihi lahaa walaal waa aragtay maartay dawladii hore waxa lagu soo dhisi jiray dibadaha maartay waxa lagu soo dhisi jiray maartay wadamada biriska ayaa lagu soo dhisi jiray tan maanta waxay uga duwan tahay maadaama wadankii lagu dhisaayo oo wadan gudihiisa lagu dooranayo walaal wax badan ayaa aad iyo aad uga duwan tahay marka waxaan dhihi lahaa maartay sidaad og tahay maartay dawladdan waa dawlad hadda cusub marka waxaan dhihi lahaa maartay aad iyo aad baan ugu taageersanahay marka mid labaad ciidanka maartay qalabka sida waa in maartay la dhisaa oo maartay oo wadanka aad iyo aad maartay loo wanaadiyo hawlo badan la qabta aad baad u mahadsantahay adigoo jooga London iyo fikirkaaga wanaagsan iyo Soomaalinimada aad muujinaysid iyo sida aad ula dardaarmaysid guud ahaanba wanaaga maanta jiray laynka kale ee telefoonka ayaan u gudbayaa daawadayaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh habeen wanaagsan وعليكم السلام ورحمة الله. كوسو دو برنامج كان جارك يونيفرسال مقعقة. مقعقة عبد الرحمن حاجي باريس. باريس محاضر الله عبد الرحمن حاجيو. نوربر وسلامة عقمدية. عاديات. المركز وحاوهم بلينا كمان أمة الصوماليات. عاديات. كان عن جميع عصب برلمانك. عاديات. بروفيسور محمد شيخ عثمان. الجواري هاي واقرتي. هاي مركا waxaan filayaa in cagta dhigatay markaan cagta way dhigtaa leedahay cagmadhiga ma markaan waan fahmayaa aad ba aniga lafteedu waan dareemayaa cagmadhiga ayay muddo ahayd oo way istaagi weyday oo aniga lafteeda isirixaal ku waasida laakiin iminka cagtay dhigtay saad sheegtay waxaan rajaynaynaa inay cagaha si fiican u dhigto oo dalka Soomaaliya uu dego oo nabad iyo barwaaqo iyo caano sida adiguba qabtid Cabdiraxmaan Soomaha هاي ساسا إن شاء الله. aad baad u mahadsantahay waa kaaga mahad celinayaa sida aad marna ugu hambalyeynayso gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee dalka Soomaaliya marna aad u leedahay arrimihii maanta salka ay dhigayaan oo wax wanaagsan baa la filan karaa mar hadiiba shirkii doorashada lagu qabtay magaalada Muqdisho sida dad badan ay qabaan laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh calaykum assalaam waraxmatullahi cagmadiga waa ku salaamay aad iyo aad waan kaa qaaday waan ku soo gudbinayaa mid lamida maxaad oran lahayd aad baan anigoo kaalaada waxaa la yiraahdaa Xasan Macalin Arba waxaan kaala hadlayaa dalka Norway haye صاحب وإلهي مهدي ما أنت هدي سوماليا مقالة مقدشة وبرلمان كي سوماليا أو حر لغو غطي ما قرتي آديات وان قرتي صاحب وهم بليا سوماليا ودن أنسو نغطي إلهي وحان كبريا عز وجل الله عرك أمي أيا وحان كبريا دولة عادلة الله يو عسيس وعرك كي أبو رو انت عالم كانوا العشقي وضبحيو وعبدي قاقبانا هاي عبادة هذا تالا أكو معاسين أنيقو يعسي قاقيل الله يو عسيس وحان كاعسنا يا دولة عادل نودلي وانا عقا قبيوني عكتا ميشان صارنبا عكتا ميشان صارنبا وانو عريري الله يو عسيسو كوا عرف تركني عادي سيدريركي كوا عرف تركني عادي سيدريركي عذركي يا عقار شو ما يالك بدن با سومالي عرف تري الله يو عسيسو دولة عادل نودلي عاديات امين أرض صاحب وما سنتهي إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا ومد الصوماليين ملك استوجو ترى نكبرينا دولة عادلة من نغانا مد عادلة ربي سبحانه وتعالى أيا أمد الصوماليين وين رفاتي لواتن سنة عاديات أيا يسعون يسي أو يعدي بنتي أو حمر ودروا لغاها ما قرتي aad waan garanayaa maanta waxaan garanaynaa inay Soomaali lagu qasbay inay duruuc cunayso oo culimadeena ay isku haysato maanta dhibaatadana haysato wax laga sheekayn kara maahan waan gartay
marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in maaragtay soomaaliya ay noqoto waxaana ugu hambalyaynaynaa oon 114 u diraynaa madaxweynihii intaas isku taxluujiyey iyo ummadii reer Jabuuti aan weligeed naga harin cimri dheer cibaadada aan ku leeyahay saaxiib Cumar Geelo adigana aad baad mahadsantahay inuu cimri dheer cibaadada la siiyo kuwa heerkan soo gaarsiiyay oo hadda madaxweynahan hadda maanta ka jiro Sheekh Shariif Sheekh u horeeyay ummadan kale intii garab ku siisay rabbi waxaan ka baryaynaa ayagana inuu dambi dhaaf siiyo waayo wax sharaf lay qabteen ma garatay aad baad mahadsantahay waan gartay aad baad mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa dhinacna codsigii iyo dhinacna baryadii ee Amiin aanu lahayn iyo mahadcelintaad u jeedisay guud ahaanba madaxda ee ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabkiisa oo tiri wanaag ayay dadka Soomaaliyeed markasta ay la maaganayeen maatinid baan kula daawade halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga ee Universal Studio London iyo barnaamijka gaarka ah ee ku wajahan ama ku abaaran doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya ee maanta la doortay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo waliba gudoomiyaha ku-xigeenkii koobaad ee baarlamaanka dalka Soomaaliya loolankii loo galay oo uu ku soo baxay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Jailani Nuur Iker oo ahaa waliba wasiirkii howlaha guud iyo guryeynta ee dawladii ugu dambeysay taasoo ay ku muujinayso aqoonyahanka maasha Allah in karti iyo wanaag uu ku helay booskiisa iyo aqoon kadib markii cod la qaaday taasoo fursad aad u qiimo badan oo Jailani Nuur Iker waliba Jailani waxa uu kamid ahaa daawadayaal wafdigii ugu dambeeyay ee yimid halkan markii Soomaaliya shirka loo qabtay 23kii bishii February sanadka 2012 isagoo ahaa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta kana mid ahaa wafdigii ballaaran ee ka yimid dhinaca dalka Soomaaliya markasta iyo waqti kastaba telefishinka caalamiga ee Universal waxa uu diyaar idin leeyahay soo gudbinta barnaamijyada noocan oo kala ah si aad fikirkiina u dhiibataan adinkoo jooga meelo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan laynka telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عقب دي وايد سلامي أديك يدمان شغالها يونيفرسال مقعي وحسن waxaan joogaa dalka Jarmalka aadiyad runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaya madaxda cusub oo la doortay Professor Jawaari iyo aqoonyahan Jailani waxaan dhihi lahaa runtii waa madaxdii u baahnaa maantana waxaa shaqeeyay cadaaladda iyo aqoonta iyo midnimada waxaan isleeyahay waa laga gudbay qabiilkii iyo lacag qaybsigii iyo maaragtay dhabar ka taabashadii aadaan ugu hambalyeynaya aadaan ugu faraxsanahay kaliya waxaan rabaa inaan xasuusiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka madaxda ah oo la doortayba 10 sano ugu dambeysay 2002 markii laga soo bilaabo markii ay isqabteen Dr. Cabdiqaasim Dr. Cali Qadar Galleer oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ilaa maantay Soomaaliyeed waxay daawanaysay madax is haysatay gudoomiye baarlamaan ra'iisul wasaare madaxweyne dad iskhilaafsan marka inay maanta aan ka gudubno oo aan u gudubno madax wax qabanaysa madax wax qabad iyo horumar iyo midnimo iyo cadaalad iyo horumar dadka u horseedaysa aan rabi lahayn saasa ummadda Soomaaliyeed sugaysa Professor Jawaari nin u qalmo oo shaqadaas ka soo bixi kara waayahay waana mahad Ilaahay maanta haduu hogaankii hay'adii dastuuriga ugu weyn wadanka uu ku guuleystay inta la shaqeynayay ku xigeenadiisana waxaan leeyahay baarlamaanka waxaan leeyahay guul waxaan leeyahay sidaas oo kale u doorta madax kale oo hoggaan cusub oo kale oo madaxweyne ra'iisul wasaare cidii aad u garataan inay u qalanto aad maanta Xasan adigoo jooga Jarmalka taariikhda kooban aad ka sheekaysa adoo ka digaya isqabqabsiga iyo waxaan loo baahnay una hambalyeynaya madaxda cusub ee dhinaca baarlamaanka dalka Soomaaliya laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh habeen wanaagsan assalaamu calaykum calaykum asalaam sata magacaaga صاحب عبد الله سيادة اللي هذا هيا عبد الله حكيت شوكتا لندن انجوغا كسو وقت ما ساعد maanta ma la socotaa wixii dhacay في عن صاحب وما سنت عقم اللي قاعد يونيفرسال haye marka ugu horeeyo horta waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo gudoomiyaha cusub baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa aad iyo aad waxaan rabaa kale inaan hambaliyeeyo maaragtay mudanayaasha baarlamaanka oo soo doortay xildhibaanada cusub aad iyo aad shaqadooda ugu horeeyo oo ugu wanaagsan waa ka soo baxeen aad iyo aad waxaan ka filanaynaa inay haddana maaragtay shaqada labaad ku soo xogtaan ka filanayna waxa way madaxweyne fiican inay soo doortaan aad iyo aad haddii ilaahay ku idmo maaragtay waxaa ku xiga inay markaas dawlad fiican marka madaxweynuhu uu soo doortay prime minister fiican oo maaragtay ansixiyaan ka bacdina waddankaas ugu dhaco aad iyo aad wadda Soomaaliyeed oo badaha ku dhamaanay oo ilmahooda gaalada u soo qaxeen oo gaalada u galeen oo maaragtay gaaloobay xabsiyada ka buuxa soo noqdaan waddanka uu hagaago insha Allah taala iyaguna ay dawladdu ku jaagarayaan maaragtay wax alay wixii khaladaada iyadoo iska horimaad iyo jijiid iyo xukunka la isku qabtay nidaamka cusub la raaco nidaamka in la raaco nidaamka نعم نظامك الرئاسي إن شاء الله تعالى
aad baad u mahadsantahay walaal fikir wanaagsan baad muujisay maasha allah aad baad u mahadsantahay iyadoo maaragtay una hambalyeynaya una ducaynaya halkaad nagala socotaan waa Universal Studio London iyo barnaamijkan gaarka ee ku wajahan kuna abaaran ama daaran sidaad u taqaanaanba doorashadii maantay dugsiga sare ee General Kahiye ee booliiska ee magaalada Muqdisho oo gudoomiyaha baarlamaanka loogu doortay Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari gudoomiye ku-xigeenka koobaadna natiijadiisii ay waqtiyadii ugu dambeeyay soo baxday Jeelani Nuur Ikar oo ah noqday gudoomiye ku-xigeenka koobaad dhawaanna aan idin soo gudbin doona biidnillah kariim natiijada kale oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dalka Soomaaliya oo yeelanaya markii ugu horeysay muddo dheer oo isqabqabsi iyo iska dab wareeg iyo lugooya laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh عليكم السلام عقم ديغه ها walaal ku soo dhawo barnaamijka magacaaga waxa la yiraahdaa Samson Ismaan Ali haye waxaan kala soo hadlayaa Sweden ma sha Allah haye horta marka ugu horeysa waxaan u hambalyeeyaa Professor Jawaari haye guusha uu gaaray oo la wada jeclaan Soomaaliya dhan aad iyo aad tan kale waxaan u hambalyeeyaa Soomaalida guusha ay gaareen inay maxaan ku dhigi karaa maanta heleen dawlad ay iyagu u madax banaan yihiin oo maamulan karaan aad iyo aad tan kale waxaan leeyahay weliba uu maaragtay waa qabyo waa xal taagay digihii guriga waxa u dhiman maaragtay dadkiisii aad iyo aad waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inay Soomaalidu doortaan nin maaragtay Jawaari oo kala ah oo wadanka wax u qabanaya samsam adigu Sweden baad joogtaa habla badan Soomaaliyeed hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa jooga ma isleedihiin intaad isu timaadaan waxaad isku waafaqi kartaan inaad taageertaan baarlamaankan iyo wanaagiisa arrinta ma laga yaabaa inaad samayn kartaan adinkoo Sweden jooga wallahi ni iga horta waxaan ahay dadka sida tooska website-yada uga maaragtay دفاعي ما عرفتي عملية دولة عصب وتاجرة عاديات وحنا هذا كأدو تاجري إن شواري وما عرفتي لدورته وأدبا نوقف فرح سنة تاسي ما أنت وكل استينا عن تلفونك سوق عاوة عاديات ولي جاي بمركي جورس أنتي كسر هذا ما عرفتي تلفوننا نصدر تي في ده الصوماليات واقرتي إن كسر هانتي رقص تي في الصومالي ورقص شقين في أنا يتقاني عاديات وسنفن اسمان أنا هاي سفي عن maxaan ku dhigay waxaan rajeynayaa agmadhigo inaan sarti yareed dheereyd waad xasuusataa qolkii yarka ahay oo halka halka miis yaalay inaynu xaarano aynu dib u gurayno nolosheena farxadda lahayd aad iyo aad aan ku xirnayn lacag qof walba wadankiisa uu jeclaa inuu wax u qabto aad iyo aad ilaahay marka waxaan ka baryayaa in maaragtay Soomaaliya meel joogta ba isku wada xiranto gabdhaha Sweden aad weydiiseen anigu waxaan madax u ahay urur haweenka Soomaaliyeed magaalada aan deganahay ma sha Allah oo la yiraahdo first hawlo aad u fara badan oo aad u wanaagsan haweenka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed wax tar u ah ayaan qabanay si wanaagsan haddana waxaan isku taxalujinaynaa aan rabnaa ururkeedu inaanu la xiriirno ilaa iyo Soomaaliya ururka Soomaaliyeed hablaha ee ka jira si aanu maaragtay aanu u taageerno dawladda iyadoo dhiirigelin u siino taas ay ugu maaragtay kalistay anigana inaan website-yada iyo Facebook aan maaragtay dadka aan rajeynayo inay maaragtay wadanka wax u tarayaan sida Jawaari oo kale aan maaragtay uu ka taageero aad baad u mahadsantahay samsam adigoo aqoon-yahanad Soomaaliyeed dhinacna ka tirsanaa dadkii wax ka walwaali jiray ama wariyaashii ama maamulkii iyo waliba qorayaashii wasaaradii warfaafinta gaar ahaan telefishinka Soomaaliya sarti yareeda dheerada halka miisiilay ee telefishinka ahaydna waxaan filayaa iminka inay ka balaaran doonto oo maanta telefishinka qaranku waa uu jira laakiin inuu heli doono dhismo aad u balaaran mana la iloobi doono qaabkii sidii telefishinka Soomaaliya uu u shaqeyn jiray markii uu cusba aad iyo aad baad u mahadsantahay adoo jooga wadanka Sweden laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوسو دو ولا البرنامج كجاركا يونيفرسال. مولدك معانا تقول له كالسو هذا يهرن. ما شاء الله هي مولد محاضرة لهد. وعليكم السلام يا عكت حاجي مركور هذه دادية برنامجك. دادية. مركور هذا محنكون فرح سنة جوش الصومالي وسويتي. يا مانتو الصومالي إيش حرنما إيش كدورة عيونا كينيا لتجينا جيبوتي لتجينا إثيوبيا لتجي. دادية بروح ونكسن. taas ayaa maaragtay marka hore aan dheela farxad si wanaagsan oo talaabo loo qaaday ay tahay aad iyo aad waa wax wanaagsan marka waxaan ilaahay ka baryayaa
inta dhiman inuu ilaahay wanaagaas noogu dhameeyo inuun dhiigna daadanin باذن الله كريم soomaalina wanaag dhexdooda ay maaragtay ilaahay dhex dhigo باذن الله كريم aan maaragtay ku darsan lahaa waan ku salaamayaa cagmadhi aad baad u mahadsantahay mawlid adigoo jooga wadanka Holland fikirkaaga wanaagsan iyo qaabkaad wax u soo gudbisay daawadayaal waxaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo barnaamijkan oo ka qayb ahaa barnaamijyada gaarka ah ee loogu talagalay doorashooyinka kala duwan ee ka soconaya dalka Soomaaliya oo maantay magaalada Muqdisho dugsiga sare ee booliiska ee General Kahiye ay ka dhacday doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka markii ugu horeysay ee dalka Soomaaliya oo loo doortay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyadoo ku xigeenka koowaadna loo doortay natiijadii ugu dambeysana Jaylani Noor Ikar gudoomiyaha ku xigeenka labaadna iminka wareegyadiisii ay socdaan oo aan idin soo gudbin doono wararkayga soo socda biidnilaahi kariim waxaan si gaar ugu mahad celinayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee fursad u helay inaynu caawa halka ka wada hadalno ee duceynayay marna hamigooda aad u fiicnaa oo dhammaantood ay ka wada sinaayeen waa barnaamij kamid ah barnaamijyadii ugu horeeyay oo dadka Soomaaliyeed ka wada siman yihiin fikirkooda ku aadan qaabkii sida wax u dhacayaan dalka Soomaaliya gudihiisa waxaan kale u mahad celinayaa dadka kale ee isku dayay laakiin aan helin balse barnaamijyadeena kala gaadi doona oo aanu ka wada hadli doono iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee ka dheehanaysa telefishinka dacallada dunida iyadoo xagga waqooyiga Ameerikana ay tahay galab dheer xaggana ay tahay fiid xagga Soomaaliya iyo dhulkii bariga Afrikana ay tahay iyo bari dhexe waliba yaani fiidnimo iyadoo Australiana aan gara kale xilliga ay tahay waa bari laakiin dadka qaar aan filayo inay natiijada aanay ka seexan oo ay daawanayeen meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay wax quman oo wanaagsan oo idin rajeynayna hadaynu nahay telefishinka caalamiga ee Universal barnaamijkii gaarka ah ayaan intaas ku soo gabagabeynaya anigoo ah Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga waxaan u mahad celinayaa guud ahaanba bahda Universal meel kastoo ay joogaan sida fiican ee quruxda badan ee barnaamijyadan ay u soo gudbiyaan tan iyo kulan dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh